qaybaheeda kala duwan aad iyo aad u mahadsan yihiin fariin gaaban ayaa waxaan rabaa inaan gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidamada amniga iyo bulshada siday u wada shaqeyn lahaayeen inaan wax ka hadlo dadka Soomaaliyeed inta badan waxay wada og yihiin oo yaqaanaan in rasuulkeena Caliisa salaam inuu yiri inama al-a'maalu bin-niyaat inuu yiri wax kasta waxay ku xiran yihiin qofku wuxuu asagu niyeysan yahay وإنما لكل امرئ ما نوى قفل بنا وح أسقوا نيست إنه هلا أيها الرسول كان ناشئ صلى الله عليه وسلم وحنا بقى عندما أمان كسوقية إن أن أشهد إن أيهين مجاهدين رسمي وكجرة الجهاد في سبيل الله كجرة ومعناها ومضوا إن يدافعان أو اللي بعتنا كدافعان وواحد نبكوا كدافعان إن أي كجران هوشاس وأنتوا تهم معناها إن أي بلشة الصوماليين نبضيان taasoo ay ku mutaysanayaan ajir taasoo ay ku mutaysanayaan in ay qofkii ku dhintaana uu shahiid yahay qofkii ku noolna oo jidka Ilaahay ku taagan yahay waxaan rabaa marka ciidamada amniga sugaaya in ay ogaadaan shaqada ugu sarreysa ugu muhiimsan inay ayagu hayaan waxaan dhihi karnaa hadduu jiro qof Soomaaliyeed oo shaqo haya shaqadaasoo Ilaahay agtiisa abaal looga helayo ama ummadda Soomaaliyeed ay uga helayaan mahad iyo karaamo inay shaqada ugu horeysa ayagu ay hayaan waxaad ogtihiin kulli waxaan ciidamada amnigu kulli quraanka waa yaqaaniin quraanku wuxuu leeyahay la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd waxa laga hadlay xilliga adkaay dadkii soo shaqeeyay dadka xilliga adag shaqeeyay inay ka wanaagsan yihiin kana abaal fiican yihiin dadka shaqooyinka yaryar ama xilliyada dhibka reer shaqeynaya waxa ugu badan oo ay bulshadeena ay ku nool yihiin oo ku jiifaan oo nabad ku yihiin oo ay ku ganacsanayaan waa amniga ciidamada sugaya oo shaqada ugu sarreysa ee la qabtahaya ayagaasa lagu hurdaa ayagaasa lagu nastaa ayagaasa lagu ganacsadaa ayagaasa lagu noolyahay sidaas darteed ciidamada amniga mar kale waxaan leeyahay shaqadii ugu habooneed ee qof Soomaali qaba lahaa ee naftii huranimo iyo howlkarnimo iyo danta guud in lagu milmo in dadka loo adeego ayaga haya sidaas darteed ha ogaadeen inay ajirka ugu badan iyo abaalka ugu badan ay leeyihiin سائنا وجانا وباهنا كان صلاة الليل دكانة كان قرآن كأخرنايا إن كستوي أجر كود بدنيا هلا لكن هوش أي هايان إذا ما أمنية أجد كتاجن قرحة يقبوج تاجن سودي جاي دبعتوينك أيا أبالك أو بدن أجر كأو بدن له أيا واحد أو في عن سميريا أيا أكوا أنكور نكوسو جنو أيا أكوا أنكو كان أحسنينه أيا أكوا ضد كذا يكون ليهين ومدة صومال ودن سلاس درت إذا أمان كسلا إنه فهمان inay shaqada ay hayaan ay tahay shaqo ay Ilaahay agtiisa ajir uga helayaan ummadoodana karaamo iyo cizi u haysa shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay garab u noqdaan ciidamada ammaanka inay garab u noqdaan wixii tala ah wixii toosin ah taageero hiil iyo hoo iyo higelin wax kasta in looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed oo ammaanka aan iska kaashano shacabka iyo iska kaashadaan ciidamada ammaanku markii la iska kaashado gacmooda jiri wax ku gooyaan waxa la rabaa dhabarka ciidanku inuu ku hayo shacabka ay dhinacooda ammaanka yahay iskaashi xog la isu dhiibo in la iskaashado sidaasaan rabaa inaan kula dardaarmo ciidamada amniga shacabka Soomaaliyeedna aan ka codsado fariin ahaan inay garab siiyaan ciidamada ammaanka aad iyo aad u mahadsantihiin